لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله وأشرف المرسلين وعلى صحبه أجمعين وبعد مدن يالي مروين وحن السلام سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن عبد الكريم على العمر يوفدقي سقيمة له سلادينتا أما سلطانكا وقاسكا قدوميها قورتيدا وقاسيدا قراديدا ماشي يسوي يمد يددوينيه إن شرفت له بقر كمان كنت قدام سوري بقر أنا وكيلك بقر كا ثانك يو إن هذا حسين dadweynihi na sharafta leh caawa meesha waxaan ku arkay horta shirar badan baan ka qayb qaataa marka waxaa laga fiiriyaa maaragtay quality iyo quantity waxaan qabaa shirkan waa shirka ugu maaragtay quality fiican buu ka mid yahay kuwa aan soo arkay madaxdii communitiyada waa ku dhan yihiin meesha odayaashii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii gabdho iyo wiilalla waa ku dhan yihiin meesha bahda warbaahinta oo maaragtay dacwal shira asagu xabad uu sheegay نوا كليين انتي الناس inaad ila soo dhaweysaan oo aad meesha ka soo qayb qaadateen wafdigan qiimaha leh oo meesha fog nooga yimid aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa wafdigana aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay dadaalka faraha badan oo aad sameyseen meesha dheer oo aad nooga timaadeen reer Minneapolis haddaanahay ama reer Minnesota guud ahaan iyo ragga banaanka nooga yimid oo la sheegay Canada iyo Paris waadna sharafteen waadna qiimayseen thank you so much sidoo kale idinkana awal baa maaragtay sheegay yani ka soo qaybgalka waxaan aad kaga soo qayb qaadateen aad baad ugu mahadsantihiin walaalayaal anigu ma rabo in maaragtay muhiimadda wafdigu uu noogu yimid inaan maaragtay sii dhabqiyo ayagaa noo sheegi doona ayadoo tafatiran oo noo macnayn doona laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego Jubbaland markii loo halgamahayay si fiican baad uga wada qayb qaadateen raggiina meeshaan wada fadhiya waan maaragtay markhaatibaan ka ahaa ambassadorku ka qayb qaatay halgankaas xafladii ugu dambeysay oo ugu weyneed oo loo abaabulay ambassadorku wuxuu ka ahaa main speaker wuxuuna ka akhriyay khudbadii ugu qiimo iyo maaragtay xaraarad badnay miya xaraarad yeelda mise xamaasad whatever marka ilaahay waa idinku guuleeyay annagu berigii hore markii aanu ducaynayno Jubbaland waxaanu dhihi jirnay Jubbaland ha hirgasho hadda waxaanu leenahay Jubbaland hawaart si ku waari lahayd waxa weeyaan in gacmaha la isqabsado in hay'ado badan ay u dhashaan hay'adan waa hay'adii ugu horeysay oo ku biirtay hay'adii hore oo soo jiray oo gacanta siin jiray Jubbaland marka hadda hambalyaanu idin leenahay waana idin ducaynaynaa sidoo kale kuwa cusub waxay u baahan tahay kaalmo fara badan bay u baahan tahay caawimaad fara badan bay u baahan tahay nin alla ninkii ka qayb qaadanaya ama hay'adu sameeyay oo asagu iskeena waxaanu leenahay ahlan wa sahlan ku soo dhawow meesha waxay u baahan tahay hawl fara badan guusha haddaad gaarto xagsashadeedu aad bay u adagtaa marka si loo xagsadana waxay u baahan tahay gacmo iskaashada iyo isku ujeedda أنا واحد إلى هذا فرها بدن أو ماركتي أما مجا جبلان وتا أما ماركتي لو أساس هايو فكرة دوين وحي كشرتها إن أي أجيبوا إسكور هيان أو قعني سيان أو أي سكلام سيرين أي ماركتي قيب سدان سيدي أي قعن أسين لهايين جبلان يسومالي ورالي أنا مرة إن سيدان وشيء عن كذب غيو hawlo badan bay qabanayaan safiirka iyo guddiga ay noo macnaynaya
oo noo tafatiri doona xabad inoogu sheegi doona midda kaliya aan leeyahay waxaa weeyaan mar labaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane cabdikariim kuna soo dhawow mikrofoonka بسم الله الرحمن الرحيم جلال محمد عثمان قادي آد بانكاغا مهدرين هي سودوينتا روح البدن هذه السيسي يا أبا يا أود يا باركي أمانة فرحة بدن متيسن مرك آد بان أريد أسأل بحان ربع مرك هورينان ومهد عليو صلادينتا وضياشة دليردا بقردا شرفت الساد نو شرفتين على كسوق بشان warbixinta inaan wax bixinayna siino shirkan aan caawa ku leeyahay magaalada Minneapolis aad baan uga mahadcelinahay soo dhaweynta aniga shakhsiyan la soo dhaweeyay iyo dadka igula jira JDI ama Jubaland Development Institute oo ah ururka horumarinta Jubaland markii taan ka dago waxaan rabaa inaan wax yar iraaho Soomaalidu waxay tiraahdaa kuma mada hadal hamama buuxsho waa in dawladda laga raacaa dawladda marka waxa weeye inaan barfasirno Jubaland Development Institute maxay tahay maxaa loo subiyay maxaanse ka soo doonay Minnesota ama magaalada Minneapolis leeyahay in arrimahaas aan ka jawaabno waa laga maarmaan markaan wax yar ku laabto taariikhda kullee waad ka warqabtaan Soomaalida waxay tahay war la qabo xiisama leh Jubaland waxay soo martay dhibaatooyin fara badan sida aan wada ogsoonahay gobol ahaan waa gobolka dhibaatada Soomaaliya ka dhacday ee ku habsatay mid ugu darreyd ah dad la bahdilay la dhibaateeyay xoolahoodii la dhacay waxay ahayd warsan waxay gaalada ku tilmaamaan ama waxa lagu tilmaami karaa epicenter markii afka qalaad lagu hadlo hal yani waxay ahayd unugtii meeshii ummadda Soomaaliyeed ay ku halagantay bahay dad Soomaaliyeed baa isku leeyahay ayadoo adduunku garan lahayd waxa la soo leeyahay manaad markii dhibaatada soo martay gacmo badan baa isku bedelay hadda waxa ka dhisan dawlad wax ku oola oo ujeedadu ay tahay dawladda u shaqeynaysa shacbiga Jubaland oo Soomaaliya oo dhan ah sidaan soo dawladda Jubaland ma sheeganin inay magaaladu tahay magaalo qabiil ma sheeganin inay tahay magaalo kooxeed waxa weeye waa magaaladu ama Kismaayo dadku Kismaayo xiiseeyaan waa magaaladii saddexaad qaranka Soomaaliyeed sida ummadaha kale u sheegtaan inay gobolada ay ugu gaar u leeyihiin Jubaland ma sheeganin wayna ku amaanayeen lagu amaano weytaas marka waxaan rabaa in halkan ka sheego markaan aragnay dhibaatooyinkaas oon aragnay dhibaatada dadka Jubaland haysta ayaan waxaan go'aansanay inaan urur dhisno ururkaas la yiraahdo JDI oo ujeedadiisu ay tahay in wax lala qabto dadkaas oo wax laga qabto xagga dhaqaalaha wax laga qabto xagga caafimaadka wax laga qabto xagga waxbarashada ururkan urur siyaasadeed ma aha anu diblomaasi baan siyaasi baan ahay laakiin ururkan aan ka ahay gudoomiyaha ujeedadiisu siyaasad ma aha qofkii saa u qaatana wuu khaldan yahay marka ujeedadannadu yana ku rafan hadalkee waxaa weeye dadkaas tabaalaysan inay xuquuqda ay lahayn aan daafacno wax la qabanno inaan kaabayaasha dhaqaalaha wax ka qabanno marka saddex xubnood baa muhiim ah oo rabaa caawa inaan taabto ka hadlo xubinta hore waxaa weeye Soomaaliya waa islaysay civil war baa ka dhacay sida caadada markii civil war dhaco adduunka dhan uu ka dhacay Uganda ka dhacay South Africa wuxuu ka dhacay South Africa oo dagaal ka socday oo ANC islaanay nimanka cadaanka ah meel badan buu ka dhacay marka waxa laga marmaan in la subiyo reconciliation waxa la yiraahdo dadkii la heshiisiyo Soomaaliya arrintaas kama dhicin nasiib darro waa waxa dawladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed wali dhibaatada ugu jirto marka xubinta noogu weyn waxa weeye inaan subino reconciliation oo dadka Soomaaliyeed loo kala dab qaado oo ummadii baabaaday oo dulowday in wax la qabto xubinta labaad waa qaxootiga saan wada ognahay 1 milyan ku dhawaad baa ku jirta hariyaha qaxootiga ifo dawladda Soomaaliyeed nooc rabto ha ahaatee haba yaraato waxba ka maqan arrintaas nasiib darro inaanu dadkaasuna intooda badan 70% waxay ka yimaadeen Jubaland marka in lagu celiyo meesha ka yimaadeen ma in xamar la geeyo ma in la geeyo waqooyi galbeed ma in la geeyo Hiiraan waa in xamar la geeyo Jubbooyinka
taasna waan usoo taagannahay tan labaad inaan wax ka qabano economic development xagee adduunka lagu arkay wiil 10 jir ah ama 5 jir ah ama 20 jir ah oo weligiis koo dhigan waa gobolka kaliya laga heli karo Jubbaland dhibaatadaas haysata marka dadka taraynaya waxaan ka codsanaynaa in arrimahaas wax laga qabto waxaan usoo taagannahay in arurta waxbarasho si loo weeraa laga shaqeeyo waxaan usoo taagannahay JD usoo taagantahay inaan wax ka qabano xagga caafimaadka waxaan usoo taagannahay inaan wax ka qabano xagga si loo dhisay institution wax ku oola sababta dawladda la dhisi karaa laakiin dawladdu dhismadeedu macna ma laha haddaynan capacity hadduusan jirin dadka haddaynan waxba qaban karin aqoontii haddaysan jirin marka yaana ku rafan hadal ku dheeraanin nuxurkiisu waxaa weeye waxaanu rabnaa si la taaban karo oo qeexan oo xayinimo leh inaan arrimahaas wax uga qabno waxaan ka codsanayaa dadka reer Minnesota inay arrintaa wax ka qabtaan ururkaanuna ujeedadiisu waa taas macna kale ujeedo kale ma laha shaki igama jiro inaan arrimahaas inaan wax ka qabanayno marka waxaan idinka rabnaa taageeradiina maskaxiyan iyo caqliyan iyo dhaqaale ahaanba markaan leenahay dhaqaale ahaan maaha waan ognahay dadka Soomaaliyeed iska dhibaataysan yihiin laakiin waxaan rabnaa ururkaan inuu noqdo urur think tank ah oo sida ururada gobolada kale laga dhisay ama dhisay Puntland ama dhisay nimanka la baxay Somaliland waa aqoon-yahankii waxgaradkii baa dhisay sidoo kale dadka Jubbaland waxaa looga baahan yahay inay kacaan hurdada ka kacaan oo si dhab ah loo taaban karo inay dadkaas dad kale ma lehe waa inay wax u qabtaan way Soomaalidu gaaladu waxay tiray charity begins at home waxa qabashadu gurigaaga inay ka bilaabato way marka waxaan idinka codsanayaa oo idinkaga soo hoynayaa inaad arrimaha ayaga ah wax ka qabataan ururkaanuna ujeedada loo dhisay waa taas JDI ujeedada kale ma laha waxaan kaloo rabaa inaan wax ka taabto oo ku noqdo mar labaad reconciliation Jubbaland waa meesha kaliya wali qoryo la soo haysto waa in arrintaas xalina way dad ehena oo walaala ah oo Soomaali ah oo markii oodaha la eegana walaala ah yaa diriraya su'aasha in la isweydiiyo maxay ku dirirayaan la yiraahdo waxay ku dirirayaan capacity aan baa jirta dadkii aqoon-yahankaana waa ragganaga dadka naga gabdhaha meeshan fadhiyo weeye dadku halka la iskama helo halka waa meel ka yimaado halka marka waxaan dooraynaa JDI inay wax ka qaadato halkaas in lagu soo dabaalo nabad Jubbaland waa meesha Soomaaliya ugu khayraad badan waa meesha kaliya ee Soomaaliya ay badii iyo beertii iyo xoolaha ay saaran yihiin markii aan dinjiraha ka ahaa Washington ee siddeedaadkii yaa nin bankiga ka shaqeeya World Bank baan wada hadalay wuxuu yiri meesha la yiraahdo inta u dhaxaysa Baraawe iyo Ras Kamboni 40 milyan oo qof ku noolaan karta oo si caadi ugu noolaan karta oo barwaaqo ah marka ma baa ahabu dadkina Soomaalida inay gaashadan qabato ma idinko dhulka arkay dhulka uu ka hadlayo waxa weeye waa Jubbaland waa dhul barwaaqo ah dadka Soomaaliyeed waa inay ka gaafaan ka leexdaan meena darrada ay soo leeyahay waa dadka Jubbaland waa inay soo yimaadaan gacmaha isqabsadaan waa laga marmaan haddayna heshiin horumar gaari mahayaan haddaan nabad la helin economic development lama gaari karo waa isku xiran tahay Jubbaland marka waxaan rabnaa inay noqoto unuga raadiya qarannimadii Soomaaliyeed waan ognahay Soomaaliya wax haysta sharaftii iyo calanka Soomaaliya dhulku yaala dadka loo baahan wax ka qabtaan waa aqoon-yahan marka yaan hadal ku fogaan waxaan ku soo xirayaa ururkan ujeedadiisu waa taas JDI waxay isku dhabar jabin doontaa waxaan ula hadli doonaa dawladda Mareykanka dawladaha reer galbeedka World Bank iyo hay'adaha samafalka in xuquuqda dadka Jubbaland ay leeyihiin in banaanka la dhigo waan qolo kale loogu dhiibin waan qolo kale la siinin in waxa ay leeyihiin la siiyo waxaan kaloo isku dhabar jabeynaa dagaalada sokeeye la soo horinayo ognahay meelaha ka imaanayaan inaanu ka hortagno oo dadka ehelka walaalaha inaan qoriyo la soo dhiibno la isku dirin in sheekada mushtarnimada ee Soomaaliya ka socota inay dhamaato oo dadka xuquuqda ay leeyihiin inay helaan sababta markii qolada ay cartel noqoto dalka Soomaaliya iska maaha Soomaaliya inay noqoto meel business laga soo laga tago boorso inta la qaado dadka shacbiga ee tabaalaysan ee la bahdilay waa inay xuquuqdooda helaan waxay ku heli karaan dadka wax garanaya mas'uuliyiinta dibadda jooga oo lacagta haysta oo aqoonta leh waa inay u istaagaan oo la yiraahdo waxaan qaadan mayno haddaan taa la helin waxaad ogaanaysaan Soomaaliya waxay noqonaysaa Kurdistan oo kale Soomaaliya dal Soomaaliya ilaa jiri baa la leeyahay rag odayaashu aniga iga waaweyn meesha jooga anu waxaan ku garaadsaday qarannimo waxaan ku garaadsaday Soomaalinimo
mararka qaarkood marka aragto waxa dhacaya aad soo arki jirteena Soomaaliya si aan jirto calool xumaad u dhimanaysa marka waxa weeye waxaan u baahannahay inaanu si xayinimo leh oo dadnimo leh aan u abaarno halka annaga suubin karna halku meel kale ma jiro halku Mareykan ma jiro halku Uganda ma jiro halku dawladaha dariska ma jiro halku America ma jiro halka waa dhaxdanada shacbiga Soomaaliyeed waa inay heshiyaan hu hada iyo walaahu aan macnaha lahayn iyo qabiilka dhagaha waa in laga baxo haddaan doonayn inaan dad jira noqono marka waxaan mar labaad rabaa inaan ku celiyo ururka ujeedadiisu taas weeye waxaan diyaar u nahay inaanu ka jawaabno su'aalaha qabtaan waxaan diyaar u nahay inaan qofkii shaki qabo inaan shaki ka saarno sababta ururkaanuna waxaa lagu qiimeyn doonaa waxa uu qabto ma waxaan anagu idiin sheegaad waxaan idiin sheego macna badan ma laha ururkan wuxuu ka qabtay Jubbaland iyo sidoo u daafaco iyo weesal dhigu marka mar labaad aad baan idinkaga mahadcelinahay soo dhaweynta waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gabadha Aamino Arte hawshii fiican ay qabatay waxaan u mahadcelinayaa Colonel Cabdikariim Janaal Qaadi hadda ma tirin karo dadka faraha badan awil ragii hawsha qabtay ragaas dhalinyarada ah hawshii fiicnayd iyo waxaan quruxda badan ayaga dhigay anuguna jaakadooda ma soo qaato iska laakiin dadka hawsha qabtay waa rag oo gabdhaha iyo ragaan marka aad baan arrintaas uga mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa salaadiinta boqorrada yimid oo sharaftood noo soo sharfay waxaan u mahadcelinayaa aqoonyahanka iyo odayaasha yimid gabdhaha marka de kullay wixii dooda wixii madaxda community oo timid waxaan rabaa marka inaan hadalka waan badiyay wixii su'aalaad qabtaan waxaan rabaa si waafi ah oo qeexan oo aan mugdi lahayn inaan kaga jawaabno waxa qabtaan ururkan waa urur samafala waa urur aan siyaasi ahayn waa urur aan qabiil ahayn qof kasta oo Soomaali ah markii dhismihiisa la dhameeyo diyaar buu u noqonaa inuu ka soo qayb galo laakiin condition waxa ah inuu qofka Soomaali yahay Jubbalandna taageersan yahay maamulkeedana taageersan taas aan muhiim ujeedadu taas weeye ma aha wax kale ujeedo kale anagu ma nihin waxaan u baahannahay dadka Soomaaliyeed inaan u kala dabqaadno ururada sida ururada adduunka lagu yaqaan Broken Institution iyo Heritage Foundation iyo ururada Peace Carnegie Peace kuwaas kale aan noqono dadka aqoonyahanka waa inay ka caawin marka waxaan waad mahadsantihiin kullay dadka iga dambeeya si fasiri doona ururka ujeedooyinkiisa oo qodobada soo qaadi doona anigu guud ahaan